بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال halka aad naga daawanaysaa waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa wadanka Finland khaasatan magaalada Helsinki. waa barnaamijkeeni codka jaaliyadaha oo markan idinkaga imaanaya Helsinki. waa anigoo ah Cabdicasiis Goodax Barre. daawadayaal maanta waxaa halkan ila fadhiya laba nin oo bulshada reer Finland aad iyo aad sumcad iyo sharafba ugu leh. labadaas nin oo la kala yiraahdo شورية محمد شورية iyo ياسين كاس. طبعا kusoo dhawaada barnaamijka codka jaaliyadaha labadiinaba. طبعا waxaan rabnaa maanta barnaamijkeena waxa uu ku saabsan yahay arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha dhalinyarada waxyaabaha la xiriira. طبعا waxa Finland ka jira inta badan dhibaatooyin badan oo طبعا Yurub oo dhan ka jira. dhibaatooyinkaas oo ah kuwa dhalinyarada xilliyada iskuulaadka markii la xiro يعني tareenada meelaha tareenada iyo basas stationada iyo meelaha dadka isugu yimaadaan inta badan isugu yimaada. marka mid kamida mashaariicda ama lagu wacyigeliyo dhalinyarada ayaa waxa uu ka bilaabmay magaalada Helsinki mashruucan oo horay u jiri jiray. طبعا waxaan rabnaa mashruucan Phoenix ayaa la yiraahdaa. managerkiisa ayaa halkan ila fadhiya Maxamed Shuuriye. Shuuriye ayaan rabaa inaan weydiiyo xilliga ay bilaabeen mashruucan sababta keentay ama baahida keentay in mashruucan la bilaabo iyo waliba waxyaabaha ay ilaa hadda qabteen. bismillah ma hasantahay Cabdi Aziz. mashruucan hore u jiri jiray waxaan bilaabnay 2000 xilligaas oo magaalada Helsinki centerkeeda uu ka jiray dib weyn. dibkaas ma ay sababtiisa inta badan ay lahaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed ama ajaanibta. waxaana markaas naga kaalmeyn jiray magaalada Helsinki. wax yar uu galay hakadka uu galana ma ahayn yani in asaga dhan la joojiyay, laakiinse shaqadii aan qabanay ayaa waxay keentay inaan loo baahanay oo laakiin xilligan waxaan ku soo laabanay shaqadii sababtoo ah baahi kale inta jirto oo dhalinyaradii aan ku soo laabatay. kuwa hore way weynaadeen, qaar shaqooyin ay abuurteen, iskuul waxbarasho, laakiin kuwa cusub oo wadanka ku dhashay ama gadaalkiina wadanka ayaa goobihii hore bedelay. waxyaabo badan aan qabanaa oo inaan marka ugu horeyso waalidiinta Soomaalida iyo xafiisyada dawladda aan sameeyno wada shaqayn u abuurno si isfaham waalidiinta dhexdiisa iyo xafiisyada dawladda iyo iskuulaadka aan wada shaqayn ka abuurno. wada shaqayntaasna waxay keentaa is-aaminaad badan. طبعا sidaad ka dhawaajisay mashruucan mashruuc hore u jira ayuu ahaa oo hadda dib loo cusboonaysiiyay. waxyaabaha keenay culayska tirada badan leh ee keenay in maaragtay dib loo cusboonaysiiyo mid iyo laba kamid ma noo taaban kartaa? Cabdicasiis, waxaa keenay dhalinyaradii xilliga iskuulaadka la xiro qaasatan ayaa waxaa dhacdo in dhalinyarada ay isugu yimaadaan goobaha oo waaweyn oo centerada oo kale ama basaska ay ka baxaan ama tareenada ay yimaadaan metrooyada centerka isugu yimaadaan. taasna meesha ku ballamaan dhalinyarada inta badan. taasna waxaa keenayso sida aan dareenay ama aan aragnay meelo badan ee dhalinyarada ay isugu yimaadaan xaafadahooda ma laha. ururo badan oo Soomaaliya jiro oo taakuleeya dhalinyarada, laakiinse waxyaabo badan oo rehabilitation ma loo sameeyo dhalinyarada. waxaad ii sheegtay in ay wada shaqayn idinka dhaxayso adinka iyo booliiska iyo dabcan waalidiinta carruurta naftigooda.
dabcan sentarada markaan ka hadlayno waxaa isugu yimaada dhalinyaro tiro badan oo kala duwan ajaanib ah doorka Soomaalida ma waxaan dhihi karnaa waa kuwa ugu dhibka badan mise way jiraan wadamo kale oo ayagana sidaas oo kale dhib badan ama u baahan dhalinyaradooda in laga wacyi geliyo inaan aysan fiicnayn in la istaago meelahan jidadka oo kale tareenada oo kale sentarada waaweyn oo kale way jiraan wadamo kale dhalinyaro kale wadamo kale ka yimiday sida qowmiyad kale anaga naga tira badan waddanka joogto oo ajaanib ah sida Ruushka oo kale يعني waxay qabsadaan sida barnaamijyada hadda anaga qabano oo kale oo ciyaalkooda ay ku wacyi geliyaan si ay uga saaraan inuu meesha dambi ka dhaco meesha markay ciyaal badan isugu yimaado waxa dhacayo waxyaabo badan aan loo qasdin markaas inuu meesha ka dhaco oo ama dagaal dhici karo ama dambiyeer yar ka dhici karo Araba joogto Kurdish joogto laakiin inta badan shaqooyinka Arabta iyo Kurdishka xitaa anaga u qabano dadka Soomaalida ayaa dabcan oo ku soo noqon doona Suuriya waxa dhinacayga bidix fadhiya Yaasin Gaas dabcan Yaasin Gaas waa shakhsi isagana ka shaqeeya mashruucan horeyna uga soo shaqeeyay wax badan arrimaha dhalinyarada iyo familada waxyaabaha la xiriira magaalada Helsinki ka shaqeyn jiray magaalada Helsinki ka shaqeeyay muddo dheer Yaasin adiga bal taariikhdaada yar oo kooban kadibna shaqada hawshan aad qabato bismillaahir rahmaanir rahiim taariikhdeeda haddaan sheego aniga waddankan waxaan imid 1990kii waxaan ka mid ahaa Soomaalida ugu horeysay waddankan soo galay shaqadeydana waxay tahay sidii dhalinyarada hadda muddo ayaan ka shaqeynayay oo waxaan ka shaqeynayay Helsinki City qaybta dhalinyarada waxaa jira mashruuc aan hore aan ugu shaqeyn jiray ahaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loo badbaadin lahaa sida mashruucaas oo ahaa magaalada centerka Helsinki waxaa jiray 2005 2004 2003 in dhalinyarada Soomaaliyeed magaalada Helsinki qaybta centerka ay dhibaato weyn ku hayeen taasoo baaritaan dheer la sameeyay la ogaaday in macnaha sidii Soomaaliya loo caawin lahaa dhalinyaradaas mashruucaas waa lagu guuleystay mashruucaas lacagtiisa waxa bixiyay qolooyinka European Unionka iyo socialka wuxuuna soconayay 3 sano 3 sano waa lagu guuleystay oo ma aragtay si fiican ayuu ma aragtay u dhacay ay ma aragtay mashruucaas loo guuleystay mashruucaas waxaan rabnay inaan sii wadno laakiin qolada Nuurista Aasiya kaskus dhalinyarada Helsinki qaabilsan ama qaybta Helsinki dhalinyarada Helsinki ayaa mashruucaasi yiri lama wadi karo sababaha ah macnaha waxaad gooni u bixisaan macnaha dhalinyaradii Soomaaliyeed marka waa in lagu daraa macnaha xaafad walba macnaha Nuurista Aasiya macnaha Nuurista talooyinka ay tagaan ama meelaha dhalinyarada ay xaafad walba ay leedahay inay tagaan taas ayaa ma aragtay waana jecelahay bay yiraahdeen inaan sii wadno mashruucan uu miro dhalay laakiin waxaan rabnaa in dadka gooni loo bixiyo sida ay hadda oo kale European ka dhacaan hadii cilmihi gooni loo bixiyo waddanka lama qabsan karaan marka anagana waxaan u soo jeedinay in maadaama ay xaafadaha hadda Helsinki oo kale Soomaali badan ay degan yihiin xaafad walba in qof Soomaali ay shaqo siiso si ilmahaas ugu badbaado sababtoo ah haddii qofka Soomaaliya ka shaqeeyo meesha wax badan ayuu caawin karaa iyadoo ka caawin karo xagga luqadda ka caawin karo xagga dhaqanka ka caawin karo macnaha cunugii iyo shaqaale iyo meeshii isla macnaha wax walba oo ka noqonay laakiin haddii cunugii nin aan dhaqankii aqoon Soomaalida wixii aqoonin meesha ka shaqeeyo xoogaa wuxuu dareemayaa cunsuriyad marka sidaas keenta dhalinyarada badan inay magaalada yimaadaan centerka isku balansadaan laakiin haddii cunuga ka heli lahaa wax walba marka tiina waa lagu guuleystay oo ilaa iyo 6 xaafadood ayaa Soomaali shaqaale laga siiyay waana la soconaa macnaha arrinkaas sidaas aan barwajagtay ku joogsaday hadda ayuu mar labaad u soo cusboonaaday macnaha dhibaatadii Cabdicasiis haddaan wax yar ku bidhaamiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhalatay 97 98 99 2000 ayaa tiradii ayaa ugu badan Helsinki dhalinyarada tusaale ahaan awal waxaa jiray iskoolka fasalka koowaad markii la fariisanayo la qiimeynayo wuxuu ahaa Helsinki area
waddankan aan joogno dadka u dhashay Finland laba waxa ahaa Swedishka hadda waddanka kaalinta labaad ayaan galnay macnaha 5 sano ugu dambeysay kaalinta labaad aan ku jirnaa macnaha oo ciyaalka ardayda iskoolka ku fadhiisana marka cunugii dhashay 96 97 hadda maanta 17 16 15 waa xilliga ma aragtay underage-ka ugu darnaa taas ayaa keenaysa marka in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay yimaadaan magaalada centerkeeda taas oo ayagana qaarkood ka sameeyaan wax dambiyadaasi waxay isugu jiraan dambi in cunugii uu mataqaanaa sameeyo xatooyo oo dukaamadii waxado ama dad uu sameeyo dabcan mashruucan markii aan fiirinay oo aan waxyaabaha uu qabanayo ugu waaweyn waa ka hortagga dambiyada ay ku kici lahaayeen dhalinyarada ama haddii ay noqon lahayd maxaa la yiraahdaa xiriirka waalidiinta iyo xiriirka hay-adaha dawladda intee in la eg ayaa leedihiin waalidiinta iyo adinka xiriir Shuuriya waxaan leenahay adasiis xiriir wanaagsan oo fiican oo is aragti leh la kulmid ayna la kulmaan haddana waxaan ka codsanaynaa waalidiinta wada shaqeyn intaas dheer oo ay nala sii shaqeeyaan tan kaleenta oo haddaad ka dhawaajisay waxaan kaloo kugu daraa ka hortagid oo laga hortagayo dembiga asagoo ayaa haddana waxay tahay kii dembiga ku jiray markuu soo baxo in uusan dembiga ku laaban sababtoo ah mararka qaarkood waxaan tagnaa xabsiyada kuwa marka waxaan soo fiirinaa sida ay u nool yihiin dhibaatooyinka xabsiga ku haysato culimada waddankan degana ballanqaadan ka haysanaa inayna raacaan maalmaha jimcaha oo kale intaan tagnaa si dhalinyarada ay ayaga naftikooda diintii iyo rehabilitation fiican lagu sameeyo salaad jimca meesha lagu tukado lees arko markuu cunuga soo baxo oo xabsiga ka soo baxana yuusan ku soo laabanin dembiga hore ama dariiqa hore oo marka hore taagnaano oo hore uga sii socdo mashruucan Phoenix yaa kala shaqeeya yaa iskala shaqeysan مشروع فينيكس وحدا اسكال شقينا ياسين غاس عبد العزيز عبد القادر dad badan oo finish oo marka hore nala shaqeey jiray mashruuca hore nala shaqeey jiray anay la kooskeena nagal dhahaya jirtay oo hadda beeshin gashay oo hadda nacaawiso oo si fiican nala shaqeyso waxa hadda nala shaqeysa mulki oo gabar Soomaaliyeed oo dhaqtar inta waddanka joogto دكتور هيردا جوجس دكتور سوماليات يا ماجور معلمين بدن أو سومالي هاجرت أو ودك واحد كبرت أو يضد بدن أو ودك أنا سمعت كله أو سفي عن ولا شيء مجرى واحد كوميونيتي يالكلا أو أدينك إذا كلا قيب قاتب برنامج ها ويجرى كوميونيتي يالبدن أنا أفضل بو سومالي أو يعني وذا شقين يعني فولنتري نوو إيمان كارو إنه وحنا لقبته أما فكرة نوسو زايديو أي ويلكم علينا عمل والبنوء ذات بدنا على جلسة محل هذا قرنا وحنا قبلنا ترتن وكبت عقد أو قبلنا أو دنا قبلنا كميونيتي كلنا قبلنا لكن أنا كنا واسبوت كرينينا واحد جرس سومالي اللي تاجرته ونقع عاوسه مساجد دنا نقول جرو ururo weyn oo waddankan ka dhisan oo aanan ururo Soomaaliyeed ahayn ayaa ku jira sida kuwa maskaxda oo kaleeto kuwa muqaadaraadka la dagaalamo wasaaradda waxbarashada iyo booliiska socialki dad badan jooga naga caawino Mukhtaar Abiib oo kaleeto oo socialka joogo Zahra Abdulle oo gabar magaalada Helsinki laga soo doortay oo dadka حلبنا مقالة إيه شلي تور هبين هرمك عن صوب وقنينا ماشى عاد وحكو قبطان يو دور صورنا عن كسوق قادني وحى يجمع غدا ماشى إن عاد وذتين فنان ذا إيه نبرك وبقرنيهم بنتنا كوميونيتي يعني دور إنتيل أي وكله هنا بنتنا كوميونيتي وأور كمركو هرم مجا عيسى اللي هو ببروجكت يعني وح أو
gooni ahaan Puntland ee u qabata ma aha waa mashruuc oo dadka Soomaalida dhanka dhaxeeya mashruuc yani oo gooni ahaan ama qola ay leedahay ama ma aha mashruuc oo dhalinyarada Soomaaliyeed loogu talagalay oo lagu badbaadinayo oo anaga aan ku badbaadsanayno ubadkeena waa mahadsanta Shuuri waa ku soo laaban doonaa Yaasiin waxaad ka dhawaajisay dhalinyaradii dhalatay 97 98 99 waa dhalinyarada ugu badan hadda xilligan u baahan wacyigelinta iyo waxyaabaha la xiriira dabcan aqoonta aan ku leeyahay muddo dheer waad ka soo shaqeynaysaa arrimaha familada iyo Helsinki City arrimaha socialka iyo waxyaabaha la xiriira maxaad isleedahay mashruucan waa tari karaa mustaqbalka ama waa laga faa'iidi karaa bismillahir rahmaanir rahiim horta mashruucan hadda walaalkan شغلية كدواجع فينكس ومشروع هذا أو إسكا وحقب صح وح لعجة أما وح ما ركتي أو أنا أقول قاعدة نمجر دواسة وحرمنا كلية دنيرة الصومالية إن لقب صدان وطن كان سيده وحق الله هي وحوفة إذا سن هاي وحبرشة وحبرن هاي ونشقي سن هاي مهمة إنه وحيتها إن عن دنيرة داسي أيسن استاجين سنتر كمجالات ما كان كلها هاي سجاشن اللي سجاشن تقدر يريد دلتي سجاشن سديد سجاشن سجال أيام مجالات الجو حلية داس أيه وبرنا ين تذكر الشيء معنا دل يريد دلتي ما دام دل يريد يسوينا تي إسكان جيران معنا دباتوي بدن أو متقانا لقبس ودنكي أنا سال لقبسن إسكولات كولي قاركود كبير ماذا دباتة كلام توي ستوحيالكي أو متقانا صاحب حن هذا برتان وكلام دباتوين كوا وين وحوي إن عيالك سو استاجر رولو ستيشن كحكم إذا أسوأ برت صاحب كحن حق استاجية حتى تصالحنا وحنكوش جمال دون وحنقول ميويل صوماليات سنتر كمجال ويل كاسمر كان ويدي هذا محل سنتر كصوت تقول ويل صاحب كما قلت بس لكن دبعت لي هو إن الله كل محيط ويري لو ويل أو صومالي عيان دكان وراعي لو دي بقى واحد أنا جي أو حب حدينا معناها والي قبتي وريجستر كي بعد عشان توصلنا وتقنا وده كان وحش عشان توصلنا وحكي وين وحال قال لي ريجستر كان تنبيل هدو حظ marka wuxuu yiri waan ka walwalsanahay wixii aan sameyn lahaa taas oo kala keenayso macnaha in waalidiinta Soomaaliyeed ay ilmahooda dadka la socdaan saaxiibka ay leeyihiin ay ogaadaan way fiican tahay waxa kale oo fiican waalidiinta inuu mar walba ogaadaan ilmahooda meesha jiraan macnaha ay mar walba ka qabaan maadaama hadda ama program oo sameeyaan maadaama summer time lagu jiro xilliga iskoolaadka xiran yihiin sida hadii fasax heli karaan oo ay wadankii geeyaan ama wadamada kale intuu geeyaan macna beecadi loo bedelo si ma taqaana looga badbaado macna musiibadan ma aragtay taas ayaa iyadana jirta mid labaad oo kale inaan ka hadlo oo arab waxay tahay in waalidiinta laftigooda ay marmar soo booqdaan سنتركي مجالدا أو يمادان أو إنه أي كو أكان حلية ولي ويكندي أو كلانتهم هبينك سبتي سوكليس هبينك جماعة سوكلي هبينك سبتي سوكلي ويكندي هبينك حرم أحد هنا يمادان مجالدا سنتر كذا أي أركان سيدا وحصادان وحلقة يابا وحيابا بدن هنا يصير كل علومنا وحجر عبد العزيز دور سنة كور وحجر علوم تبليغ أو سنتر كبوقن جرتي ومتقنا هبين دي حتى سيدا حتى وحأمر صار دور كيم بلود أما سنة كان حوجا إن كيرجع يعني أيضا وين وفعنا على هذين علوم التبليغ أي ماشي صوب قطعنا كورنر خصوصا يعني سوته أمر على مركز العرق عيالك وهالكاس من جمالان علومات ويبان جرت ويودي جرم مساجد ذي كنجرين مركز أيضا أي بوس كود علومات أي ما عرفت أي كقيب قاتان أيقو عاد ونقول قيب قادن جر علومات تبليغ أو مرور بإيمان جري سنتر كم قال هذا حتى أنا أباهنا يقولي أي ماذا معنا daawadayaal halka aad weli nagala xiriirtaa waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa wadanka Finland qaasatan magaalada Helsinki waa barnaamijkii codka jaaliyadaha oo idinkaga imaanayay xilligan idinkaga imaanay wadanka Finland gabagabadii waxaan rabaa inaan laba su'aalood kala weydiiyo labada marti maanta halkan martida igu ah Shuuriya iyo Yaasiin Gaas Shuuriya maxaad isleedahay mustaqbalka dhow dhalinyarada halkan ku kortay
iyo kuwii Soomaaliya haddii ay noqoto in ay xataa is arkaan isbooqdaan waxyaabaha ka shaqeyn kartaan oo isleedahay farqiga u dhaxeeya muxuu yahay Cabdicasiis ma santa wuu jiray mashruuc oo aan horay aan u bilawnay laakiin wax yar hakad galay nabadgelyo iyo shaki badan ka yimid dhinaca Soomaaliya oo kaleeto in aan caruur Soomaaliyeed oo inta joogto laga kaxeeyo oo Soomaaliya la geeyo ay Soomaaliya muddo soo joogaan oo ay soo bartaan dhaqankii iyo luqadii iyo arabne laakiin nabadgelyo iyo waxaas laakiin hadda xilliga xaadirka waxaan u maleynayaa nabadgelyada inay ka soo tarayso yani oo ay nasiib wanaag ay naqanayso inay aado Soomaaliya xitaa waxaa kaleeto jirto mashruuc kaleeto oo aan rabno inaan ka hirgelino Soomaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed ee hadda dagaaladii waxaas ka qayb galay xabsida ku jiro in xabsiga gudihiisa uu iska xirnaanin ee xabsiga gudihiisa dhexdiisa yani rehabilitation lagu sameeyo ay nagala qayb galayaan dad professional oo wadankan oo u dhashay sax marka arrintan booqashada Soomaaliya iyo hadda ka hor ay ahayd qorsheyn inaad aadaan laakiin way nabadgelyo daraadeed u suurtagali waysa maxaad is leedahay ma jiraan xilliyada fasaxa iskuulaadka meelo ama caruurta Soomaaliyeed la isugu keeno oo haddii ahaan lahayd xerooyin oo kale oo dhaqankooda iyo luqadooda iyo waxyaabahaas lagu baro xilliyada samarka oo kale ma laga helaa wadanka ها سفي عمل لوجه على وقتك سمر كام هلا إن كستو أي وقت جو إسكح حددي يعني أي وبعدين على بأسبوع أو كلا أنا ماشي حرنيسد أو وحول بقى فاسيلتي كوا هنا ماشي ديار كويين يعني جيف كي راشين كي وحنا عيال ديار ويين تقاتير Soomaaliyeed معلمين Soomaaliyeed dad badan oo bulshada waxtar u leh oo Soomaaliyeed iyo wadankan يعني عيالka meesha lagu wacyigeliyo way jirtaan oo waan qabanaa ugu dambeyntii maxaa weli ma hesheen waalidiin idila soo xiriiray oo arrintan idinka mahad celiya ama idin hambaliyay ama idinku dhiirigeliyay xiriir ma idila soo suubiyeen waalidiinta waa helnaa waalidiin xiriirna la soo sameeya yani kuwa badan ayaana ka mid ah dadka oo volunteerka nala shaqeeyna haddana waxaan codsanaynaa waalidiin badan inay yimaadaan maalmaha sabtiga iyo axadda oo kaleeto jimcaha iyo sabtida oo kaleeto yani centerka si ay u arkaan dhibaatada meesha ka jirta Yaasina haddii aan u soo noqdo beriya dhexdaas waxaa ka jira wadanka Norway oo kale familyo badan oo aan maqnayna in laga qaato caruurtii Sweden dhowr familyo waxaa dhacday waxaa jirta ayagana laga qaato caruurtii maxaa keena waxaan rabay inaad xoogaa maadaama arrimaha socialka waxyaabahaas aad ka soo shaqeysay dadka inay fahmaan dhibaatada keeni karta in laga qaato caruurta inay qayb kamidaba tahayba waxyaabahan hadda aad ka hortagaysaa marka arrinta noocaas warbixin yar ama faahfaahin ma naga siin kartaa halka kan ma jiro sida Norway oo kale ama Sweden oo kale maaha wadankan Finland waa ka duwan yahay Sweden iyo Norway hadii la yiraahdo sababtoo wuxuu waxyaabo badan ugu duwan yahay waxa kamid ah hadii familku uu dhib haysto ama problem haysto ilaa ay xad waxay isku dayaan maaragtay in la caawiyo waxa jira qolooyinka caruurta laasta soo yar la yiraahdo oo qolooyinka caruurta xil saaran qolooyinkaasi badbaadada caruurta qolooyinkaasi waxay sameeyaan inkastoo dadkeena Soomaaliyeed ay qalad weyn ay ka aaminsan yihiin laakiin boqolkiiba boqol waxay ka caawiyaan familkii si maaragtay uu caawin lahaayeen tusaale ahaan oo kale waxay u sameeyaan ciyaalkii markay arkaan waxa laga yaabaa hooyo haysato 8 caruur 7 caruur odagii la joogin markaas oo kale arkaan in ilmihii waaweyn ay maaragtay hobbiga ay u sameeyaan oo ciyaalkii mataqaana ay ka bixiyaan lacagtii maaragtay ku ciyaari lahaayeen alaab badan qalab badan u gadaan marka caawin badan ayay wadankan Finland ee xagga waalidiinta ay siiyaan ilaa aysan wax zaa'id ah aysan jirin tusaale ahaan oo kaleento aysan wax zaa'id jirin oo haddii wax zaa'id ay arkaan markaasi ilmihii laga qaado laakiin halka kan sidaan ognahay
ama cabdicasiis oo la socotid ma jiro problemka Norway iyo Sweden oo kale ka jira oo ciyaalka si fudud loogu qaato halkan waxa la sameeyaa ama social ku sameeyaa marka hore qiimeyn waxay booqdaan guriga marka hore way si fiican ay waxay u qiimeynayaan familka sida uu nool yahay waxay wareysanayaan iskoolkii xanaanadii kadib macnaha haddii familku u baahan yahay caawintii baa la siinayaa caawintaas oo muddo ay ku fiiriyaan ilaa iyo 6 bilood ayaa ninka la fiiriyaa waxay ka tirsanaadaan ama ay u yihiin target ay fiiriyaan haddii 6 bilood oo wax walba oo ka noqdaan hataa madda sii daba raacaan oo masii waxay ismaan maaragtay marka wadankan wuxuu ku fiican yahay caawin badan oo qofka helaya hadduu codsado wax uu u baahan yahay sheegto way ka caawinayaan laakiin problemka weyn cabdicasiis waxa jira warqad bay u diraa cunug tusaale ahaan oo kale famil baa wuxuu ilmahoodii waxay sameynayaan xabid markii la soo waco waxa leeyahay qolada caruurta anahay wiilkaaga ama gabadhaadii waxay haday dukaankaasi wax ka haday marka waxaan rabnaa inaan ku soo booqano waxaad arkaysaa 2 usbuuc kadib familkii oo guuray oo ingiriiska isaga guuray waxay u qaadanayaan in ilmihii laga qaadanayo marka ma aha marka hore waxay rabaa inay ogaadaan cunuga maxaa ku kalifay macnaa inuu xado weli marka ugu horeeyo cunugu xado lama xiriiraan familka marka labaad saddexaad hadduu maaragtay waxay marka hore intuu sheegayaan familkii bay la kulmayaan dhibaatada cunugii baa lasoo fariisinaya waxaa leeyahay sababta kugu kaliftay inaa waxaan xado ama dukaan aad maxay tahay waraysi bay la yeelanayaan marka haddii ay arkaan maaragtay cunugii marka ay arkaan cunugii u sheegi waayo wax hadee markaas way la talinayaan talooyin bay siinayaan kadib markay arkaan inuu sii wada arrinkan kadib waxaa laga yaabaa inay markaas ay ka wadaan oo ilaa 3 bilood oo kaleeto ay meel ka geeyaan waalidkuna raali ka yahay kadibna ay markaas u soo celiyaan haddii uu 3 bilood soo fiiriyo ma jiraan marka sida aad sheegaysid iyo dadka Soomaalida familada waxa ay aaminsan yihiin waa laba kala fog يعني dadka waxay aaminsan yihiin markii warqad ay u soo dirto qoladan la yiraahdo lastan suwaylo ama la yiraahdo badbaadada caruurta waxay aaminsan yihiin markan caruurta waa laga qaadan rabaa ee la faka bal caruurtaada badbaadsa bal caruurtaada qoladan waxay ka fikiraysaa war u baahan yihiin ciidan in ay caawimaad helaan laakiin ma jiraan qoladan iyo qoladan dad u dhaxeeya oo isfahansiin kara ama ma jiraan ururo ka shaqeeya waxyaabahan inay dadka fahansiiyaan hadda tusaale ahaan oo kale Finland waxay leedahay ururka midnimada Soomaaliyeed Soomaalilito waxaa jira qaybtan socialka way la xiriiraan wixii arrimaha Soomaalida ku soo ururkaasi kala xiriiraan ururkaasina wuxuu ka caawiyaa sidii ay Soomaalida iyo dadka dawladdu ay isku fahmi lahaayeen mid labaad oo kale waa jiraan shakhsiyaad iska mataqaanaa Finishkan maadaama ayaga dhaqan ay leeyihiin diin gooni ay leeyihiin wadankan ay degan sharcigan ay sameysteen oo sharcigan ay anagana aan dad soo guuray oo nigid aan nahay in sidii Finishka ay kugu bees gareeyaan shakhsiyaad waa jiraan laakiin anaga waxaan kala talinaa socialka sidii ay macnaha maadaama anaga aan ka nimid dhaqan kale أنا فينش أنا هاي إن دقن كينين وياهي سيدان دقن كين مركا وحياة بدن أيان عاوين يوم تقانا مركو حي وحي كحرنت هاي مركز social كمقولوا كبعد العرور تقف كشخصي مركز social كإلمه كجرا هدو واركو مركزي واسق عاومات راتسدو markaasi waa arinta ugu fiican maaragtay oo lagu badbaadin karo reerkaas iyo caruurtaas tusaalahan oo kale inta waxa halka kan Helsinki oo maanta jooga oo ka shaqeeya Mukhtaar Habiib oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed qaybta caruurtana jooga oo badbaadada ah kaasi la soo xiriiraan wuxuu u xilsaaran yahay ajaanibta dambiyada ay sameeyaan cunuga markuu dambi sameeyo warqad ugu horeyso waxa loo soo diraa Mukhtaar Habiib Mukhtaar markuu wuxuu sameeyaa wuxuu toos u wacaa waalidkii وضعها إيه ماذا قيمين وصوبيا قيمين وصمين يا وارد كي بقول حريري يا شوشر كي وارد كسجي باول حياة مركا سيدا ساكيني سماركتي إن ودمدا سويدن نوروي إيسان قال إيسان كده عن هالك كان مركا وحجوجا تطبقنا الصوماليات أو من أيجي كشقية معناها هذا تسأل عنه قال أنت أنيك وحنا كشقية قابتا فميلدا ماركتي أورك بتبعده
hadduu familkii u baahan in la caawiyo kaleento qaybtan koonfurta Helsinki anaga u tagno guriga ku booqana guriga ku qiimeena wixii caawina haddii hooyadu ay tahay hooyo keligeed nool oo aabihi aan nooleen ilmihii iskoolka oo kale loo geeyaa xanaanadii oo kale u geynaa macnaha caawin oo zaa'id ah oo helayso weekii 2 mar ayaan siinaa haddii meelo u baahan tahay in loo waco luuqadii laga caawiyo way helaysaa macnaha taas ayaa keenaysa inay yaraadaan macnaha sida wadamada kale aan ugu soo degdegin Soomaalida macnaha halka kan Helsinki area bal iska dhaafay gobolada wixii dhacay waxay la soo xiriiraan Mukhtaar Abiib oo kale oo arrintan ka caawiya gabagabadii Shuuri maxaad ku soo kordhinaysaa Cabdicasiis anagoo ka faa'iideysanayna horta hore fursadda aan siiyay ama tala ahaan ama wixii guud adiga anagoo fursadda ka faa'iideysanayna horta hore waxaan rabnaa inaan ka codsano waalidiinta Soomaaliyeed in ay ogaadaan yani caruurtooda ama wiilka ama gabadha meesha marka ugu horeysa ay tagto tan labaad qofka uu saaxiibka leeyahay yani inta badan dhalinyarada xumaanta yani wuxuu ka keenaa saaxiibkiisa xun inay ogaadaan يعني إني يمادان مالها دليرة اسمه يمادان إني وضع شغلنا لسميان إني سهولك وراعان يعني دليرة أنت بدنا وحلو بدبادين كرا يعني وحيابها مالكنا وسبورتس كوكالات إن أي والدين أي قطع غيران يعني عنق البوح وجعلها مت باسكت وجعلها مت الفوتبول وجعلها مت كلت وجعلها يعني إن والدك وقطع غيره يعني والدين ديسن شغال واحد إن كستو غاليين لكن ودن كان واحد جرى هدي إنسان شغالين هو يدي أبا ولا جب حنا إنشورنس وكلام ترى بحنا عايز كم وحيابي كلام تو وبحنا ولا كبا يعني إني أراديان يعني وقت الإيجيليان جهدي بدل عيال كود إيجيليان تاس أنا هاد ماشان كشغال وكلام تو وكو غوري لعنت وقفك ممكن غوري أوسن أو غوري هور لقى صو سارة أما أوسن غوري لهين يا ماشى لقى عاوي أو مركو هور لدجي وحسن كشغالنا أجانب بدل أنا تكتب مركا وحنا هنا سوماليين إسكو حرناتو وأنا عروتي أنا وذا هاي سنة ويعني قف والبنا وحي أو أسجع وأقونتي هذا ليه إنه كعاوي إنه وما تصنطها قبديس حد كل دردار من هاد فاميليا الصومالي ده يوجد هم با أمة الصومالي ده في الله هذا كفايدة سنة تلفزيون قرنك الصوماليات والدين تحكوا دردار ميا إن عروت هذا وبعدين إسكورها يعني حق إسكولات كوكلة ميله جيران عيالكين لازم يهبي وما تقانا ما دام ولي سبيشال ولي شوكولة أنتو لازم يو halka kana Cabdicasiis soo socota wadankan dhalinyarada Soomaaliyeed dumar gabdhaha Soomaaliyeed ayaa wax barta xagga wiilashana wax barashada aad ayaa maaragtay ugu liitaan taasna waxa keenaysa maaragtay macna ayagoon haysan caawimaad badan gabdhaha Soomaaliyeed dhalinyarada oo dugsiyada sare dhigta gabdha dadaalay aad ma bartay ay aqoontoodana aad u heersanayso weeye marka in juhdi badan ay waalidiinta ilmahooda galiyaan wadankan ay degaan boorsada ay wataan iyo maaragtay guuritaanka badan la iska ilaaliyo marka ama wadankan si fiican loo dago waxa looga wax ilmahooda wax ayagana wax bartaan ilmahoodana ay maaragtay wax baraan macnaha muhiimada ugu weyn mid labaad oo waxaan oo dhan aan ugu badbaadi karno waxay tahay anaga oo mataqaana siyaasadii wadankan aan dhaxgalno waxaa jira musharaxiin badan oo Soomaaliyeed in la caawiyo ayagana sidii konsulka oo kale u gali lahaayeen hadii baarlamaan oo kale noqon la gala siyaasadii laga qayb qaato oo meelihii go'aanka laga gaari lahaa in qof Soomaaliyeed noo fadhiyo hadda tusaale ahaan markaan ku leeyahay qof Soomaaliyeed markuu meeshii fadhiyo oo uu joogo waa easy macnaha isfahamkii labada dhinacba macnaha finishkiina waa easy Soomaalidina waa easy
marka waxaan dhihi lahaa in siyaasadda waddanka laga qayb qaato oo meeshii go-aanka laga gaari lahaa maadaama cabdicasiis la socoto waddankan 14 kun Soomaaliya degan 14kaas kun gacmaha isqabsadaan waana amaanaya waddanka filan waxaan ku amaanaya ma jiro waa waddanka kaliya ee hal jaaliyad ay ku midaysan yihiin Soomaaliya ururka midnimada Soomaaliyeed marka in ururkaasna la xoojiyo oo ma taqaana sidii loo horumarin lahaa ururka Soomaaliyeed laga shaqeeyo oo ma taqaana ay dadka ugu mid noqon lahaayeen in u bixin lahaayeen member fee macnaha si aan hore u socono intaas aan dhihi lahaa daawadayaal halka aad nagala socoteen waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa waddanka Finland qaasatan Helsinki waa barnaamijkii codka jaaliyadaha oo idinkaga imaanaya halkaas waa anigoo ah Cabdicasiis Goodax Barre oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo